السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال halka aad naga daawanaysaan waa channelka xogta dhacdooyinka ku soo dhawaada warbixin xiiso badan oo ku saabsan haweeneyda lagu magacaabo Macron taasoo warar sheegayaan in ay markeedii hore ahayd nin. Macron ayaa lagu wadaa in ay qaado tilaabo sharci ah oo ku saabsan aragtida shirqoolka ee internetka oo ah in ay tahay haweeney labeeb ah oo markeedii hore ku dhalatay lab. marwada koobaad ee Faransiiska ayaa lagu bartilmaameedsaday baraha bulshada iyadoo wararka lagu daabacay bogga ay leeyihiin kooxaha midigta fog bishii September kadibna ay faafiyeen. wararka xanta ayaa sheegaya in markeedii hore ay ahayd nin lana oran jiray magaca Jean Michel. magacan ayaana ku baahay baraha bulshada iyadoona 10,000 oo goor la sheegay. qareenka u doodaya Macron oo ah hooyada 3 caruur ah oo qaangaar ah kuwaas oo ay ku dhashay guurkeedii ugu horeeyay ayaa xaqiijisay inay talaabo qaadayso. waxa ay go'aansatay inay bilowdo dacwadaha. qareen Jean Inoji ayaa u xaqiijisay wakaaladda wararka ee AFP. beenta ku saabsan haweeneydan 68 jirka ayaa lagu faafiyay bogagga kooxaha ka soo horjeeda ninkeeda madaxweyne Emmanuel Macron oo ay ku jiraan kuwa midigta fog. warbaahinta Faransiiska ayaa sheekadan ku raacday maqaal ee haweeneyda lagu magacaabo Nataji Ray ku qortay joornaal dhanka midigta fog. waxay markaa heshay dhageystayaal ballaaran kadib markii lagaga hadlay barta YouTube-ka. waxa ay dad badani isweydiinayaan sababta Macron ee gebi ahaanba sharciga u aadayso si ay u xakamayso been abuurka xiisaha leh. laakiin run ahaantii ma jirto wax caddayn ah oo muujinaya in qof kasta uu aaminay warkan marka laga tago dad fara ku tirisahay. saxafiyiinta iyo kuwa gudaha ku jiraba waxay si isku mid ah u cabiri karaan dhibaatooyinka burcadda internetka. ma ahan markii ugu horeysay ee Mrs Macron la bartilmaameedsado tan iyo markii ninkeeda la doortay sanadkii 2017 iyadoo horey loo bartilmaameedsaday farqiga da'da 25 sanadood ee u dhaxeeya lamaanahan. hadalkan ayaa imaanaya iyadoo Faransiiska uu wajahayo doorasho madaxweyne marka la gaaro sanadka soo aadan ee 2022. Mr Macron ayaa weli si rasmi ah u xaqiijin inuu mar labaad isu soo sharaxi doono xilkaasi balse waxaa la filayaa inuu mar kale xilkaasi u tartamo. waxa uu tartan kala kulmayaa Valérie Giscard oo u sharaxan xisbiga garabka midig ee Jamhuuriga iyo Eric Zemmour kaas oo rajeynaya in uu matalo kuwa midigta fog. dhanka kale markii horeysay madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa cambaariyay dhigiisa dalka Brazil Jair Bolsonaro isaga oo sheegay inuu si qallafsan uga hadlay marwada koobaad ee Faransiiska. qof taageersan madaxweynaha dalka Brazil ayaa ku jeestay Xaaska Macron oo 66 jir ah iyadoo qofkaasi uu Facebook soo dhigay qoraalka Facebook waxaa la socday sawirka Xaaska madaxweyne Bolsonaro Michel Bolsonaro oo 37 sano jir ah kaasoo da ahaan lid ku ah midka marwada koobaad ee Faransiiska. hadda waad fahmi kartaa sababta Macron uu sida xun ugu dhaqmayo Bolsonaro ayuu qoraalkaasi ahaa. Bolsonaro arrintaasi ka falcelinaya ayaa ku hoos qoray niyahu wajigabaxa ku ridin oo qosol ahaan uu ka wado ayuu ku sii daray isaga oo luqadda Boortaqiiska adeegsanaya. Macron ayaa la weydiiyay sida uu arko qoraalka Bolsonaro wuxuuna ku jawaabay waa arrin aad u qallafsan oo murugo leh.